wuxuu yahay hubka ka khatarta badan madaxyada Nuclearka ee Kabtan Ibrahim Taore uu dhawaan ku qarxiyay bartamaha gobolka Saaxil xilli warbaahinta caalamku ay ka aamusan yihiin waxa ka socda Burkina Faso waxa ay qaadaysaa guluf weyn oo ku kacaya 116.8 milyan oo doolarka Mareykanka ah kaas oo ruxaya rukunada nidaamka maaliyadeed ee reer Galbeedka waxay ugu yeeraan mashaariicda horumarineed laakiin xaqiiqada iyo runtu ay ka duwan tahay oo aan ahayn kaalmo shisheeye oo kaliya balse ah gumaysi dadban oo lagu soo qaaday qaaradda waa cod si fog loogu dhawaaqayo madax banaanida qaaradda kaas oo lagu qoray ciidda Afrika qayb ka mid ah weligaa ma isweydiisay sababta madaxda Washington iyo Paris ay uga baqayaan nin dhalinyaro ah oo dhulkiisa ku beeraya sareynta sababtoo waxay tahay in jawaan kasta oo haruur ah oo laga soo gooyo ciidda Burkina Faso uu yahay $1 oo deyn ah oo laga dhimay caruurta dalkaas kaas oo mustaqbalkooda ku yeelan lahaa saameyn dhaqaale waana culays laga yareeyay dalka oo ay ku qasaareen bangiyadii dhigmiiratada ahaa ee muddada 60 sano ah ka shaqeynayay qaaradda Burkina Faso ma ahan dal yar oo ku yaala oo kaliya galbeedka Afrika balse waa safka hore ee sharafta iyo wadajirka la dagaalanka gumaysi la dirirka Ibrahim Taore waxa uu cadeynayaa in badbaadada dadka Afrikaanka ahi aysan ku xirnayn saxiix laga soo bixiyay qolalka shirarka ee reer Galbeedka tanina waa dagaal saameyn sare leh oo u dhaxeeya sayidadii hore ee maamuli jiray qaaradda iyo naqshadeeyaasha cusub ee dunida waxaana si dhab ah u kala dhigdhigi doonaa sida 116 milyan oo doolar ay u duminayso dabankii cuntada ee gumaysiga cusub uu ku soo kordhiyay qaaradda iyadoo dadka reer Afrika uu ka dhigay maxaabiis ku jirta gudaha dalkooda balse intaana muuqaalka u gudagelin daawade subscribe oo nagu soo biir hanay loobin aad ku salido xabiibkeena suban marka aad maqasho tirada 116 milyan oo doolar waxay kula noqon kartaa sida xariiq ku yaala buugaagta xisaabta laakiin markii ay gasho gacanta Kabtan Ibrahim Taore ma ahan miisaaniyad oo kaliya balse waa weerar qorsheysan oo ka dhan ah dhaqaalaha qaaradda Afrika 10 sano sheekadani waxay ahayd sheeko baaquli tuugsi ah loo dhiganayo madaxda reer Galbeedka waxaan noola sheegi jiray in haddii aynu rabno inaynu dhisno wadooyin amaba aynu dalkeena hormarino in ay tahay inaynu tagno Washington amaba Paris inaga oo koofiyadaha gacanta ku haysana laakiin bishii February 25 sanadkan aynu ku guda jirno bangiga horumarinta qaaradda Afrika ayaa ansixiyay maalgelin weyn ee wajiga labaad ee mashruuca adeega kor u qaadista wax soo saarka beeraha ee loo yaqaan ruba kaas oo wax badan ka tiraya sidoo kalena dhiirigelinaya beeraleyda qaaradda Afrika maxay lacagtani uga duwan tahay lacagihii hore ee lagu bixin jiray mashaariicda caynkaas oo kale ah lacagtani kuma imaan casharo ku saabsan sida aynu u maamulno arrimaheena gudaha kumana imaan dalab inaynu gaar u lahaano biyaheena amaba aynu ku iibino dhulkeena shirkadaha shisheeye ee waxa ay ku timiday inay tahay hay'ad Afrikaan ah oo maalgelinayso danaha Afrika si loo xasiliyo dhibaatada dhaqaale ee ka taagan qaaradda Taore waxa uu isticmaalayaa laba qaab oo uu ku xirayo albaabada gumaysiga cusub albaabka koowaad ayaa ah qufulka dahabka ah Burkina Faso hadda ma ahan god dahabka laga qodo oo dibadda loo diro si loo sifeeyo balse Kabtan Ibrahim Taore waxa uu dalkiisa ka dhisay warshad dahabka lagu sifeeyo taas oo ku taalo gudaha dalka si loo ilaaliyo qiimaha iyo faa'iidada dahabka oo dalka ay ugu haraan sidoo kale waxa uu kabtanku bilaabay inuu hormariyo wax soo saarka gudaha sida yaanyada iyo sida oo kale wax soo saarka kale ay ka mid yihiin haruurka iyo waxyaabaha kale ee uu dalkaasi caanka ku yahay marka ay Burkina Faso soo saarto 6.1 milyan oo tan oo haruur ama galey ah 10 milyan oo doolar oo hadda dibadda uga baxdo cunto ahaan ayaa dalka u haraya lacagtaasina waxa ay galaysaa jeebabka beeraleyda sida Muuse oo kale oo ah oday beeraley ah oo ku dhaqan gobol waxayna dhisaysaa iskuulada ay caruurtu noo dhigtaan iyo goobaha dadweynaha sida isbitaalada iyo waxyaabaha la midka ah waxa uu Kabtan Ibrahim Taore uu sameynayo ma ahan siyaasad qaran oo kaliya balse waxa uu ka hortegayaa dab ku faafaya madax banaanida gobolka oo dhan
haddii Burkina Faso ay ka guulaysato nidaamka koloniyaalka ama gumaysiga cusub ee kaalmo horsiga reer galbeedka, waxaa badbaadi doona guud ahaan dalal kale oo ku yaala gobolka, kuwaas oo u noqon doona tusaale horumarineed. waxaana kow ka ah dalalka shurakada la ah Burkina Faso sida Mali, Niger iyo kuwa la midka ah. Isbahaysiga dowladaha saaxil ee loo soo gaabiyo AES ayaana dhisaya awood dhaqaale oo u gaar ah, iyaga oo meesha ka saaraya mustaqbalka dhow sida ay rajeynayaan lacagta CFA franc oo ah lacagta ay ku tiirsan yihiin dowladaha qaar ee dhaca galbeedka Afrika, lacagtaasi oo laga leeyahay dowladaha reer galbeedka. 40 sano ka hor, Thomas Sankara, madaxweynihii hore ee dalka Burkina Faso, waxa uu yiri qofka ku quudinaya isaga ayaa ku maamula. Maanta erayadaasi waa kuwa isu bedelaya ficil. Kabtan Ibrahim Taore ma ahan kabtan ciidan oo kaliya, balse waa beeraley ku labisan dareyska ciidanka, isaga oo u isticmaalayo dareyska mashaariicda horumarineed ee beeraha sida hub lagu xoreynayo dalka oo kale. Waxa uu Taore ka guurayaa ceebta iyo ku tiirsanaanta reer galbeedka, waxa uuna u guurayaa sharafta iyo isku filnaanshaha, isaga oo tusaale muuqda oo ku dayasho mudan u ah madaxda kale ee ku tiirsan reer galbeedka ee maanta maamulaya dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika si ay uga xoroobaan gumaysiga duleystay ee dalalkooda ku maamula siyaabaha sharci darrada ah. Fadlan daawade, haddii aad la soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso leh. Fadlan haddii aad halkan la soo gaartay ku qor qaybta hoose ee faallada commentiga guusha qaaradda Afrika.